kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka warbaahinta jariiradda qodobada aad wararkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Kenya oo qarka u saaran inay isaga harto dacwadda badda iyo fashil hor leh oo soo ifbaxaya dowlad saaxiib la ah Soomaaliya war cusub ka soo saartay wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland beesha caalamka oo dowladda federaalka Soomaaliya dul dhigtay amar laga rabo in ay ku fuliso 30 cisho gudahood iyo dowladda Talyaaniga oo lacag malaayiin dollar ah ugu deeqaysa Soomaaliya iyo qorshaha ay lacagtaas ka damacsan tahay faahfaahin ayaan idinla wadaagi doonaa qodobadaas iyo qodobo kale ayaa wararkeena ku daawan doontaan saaxiibayaal waxaa naga xasuusinaa haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar channelkeena si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca gudaha iyo dibadda aan ku bilowno dowladda Turkiga ayaa war cusub ka soo saartay wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland dowladda Turkiga ayaa ka hadashay doorka ay ka qaadanayso wadahadallada fadhiidka noqday ee dowladda federaalka iyo dowladda aan weli aqoonsiga helin ee Somaliland Turkiga ayaa sheegay in doorkooda uu ka ciyaari karo wadahadalladaas ay yihiin fududayn iyo dhexdhexaadin uu ka sameeyo labada dhinac ee dowladda federaalka iyo Somaliland Melfort Cavusoglu wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga oo dhawaan hadal ka jeediyay shirka xiriirka Soomaaliya iyo ururka Islaamka ayaa arrimahaas ka hadlay isagoona si cad u sheegay in doorashada la filayo in Soomaaliya ka qabsoonto ay isbedel muhiim ah u keeni doonto mustaqbalka Soomaaliya waxaan dalbanay dhowr fududayn iyo dhexdhexaadin ah oo ku saabsan wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland ayuu yiri wasiirka dowladda Turkiga ayaa iyadu u muuqata mid rabtay inay dib u soo celiso kaalinteedii ay hore uga lahayd wadahadalladaas iyadoona bishii December ee sanadkii hore 2018 ergey gaar ah u magacaawday wadahadallada dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland nasiib darasa danjire Dr. Olgan Bakar oo uu Turkiga u magacaaway wadahadalladaas ayaa wax natiijo ah ka keenin socdaal uu ku tegay Muqdisho iyo Hargeysa midaas oo sii fogeysay dib u furitaanka wadahadallada labada dhinac wadahadallada dowladda federaalka iyo Somaliland ayaa iyagu gebi ahaanba hakad galay sanadkii 2015 kadib markii uu gudaha dalka Turkiga uu ku fashilmay wadahadal u dhaxeeyay labada dhinac wadahadalladaas Turkiga ku fashilmay dabadeed ma suurtagelin wadahadallo dambe oo si rasmi ah labada dhinac u dhexmara qaybihii hore ee wararka warbaahinta jariirada ayaa daawanaysaan dowladda Talyaaniga ayaa ugu deeqday Soomaaliya malaayiin dollar dowladda Soomaaliya iyo Talyaaniga ayaa kala saxiixday heshiisyo lagu fulinayo mashaariic kala duwan taasoo ku baxayso lacag gaarayso 3 milyan oo euro ah wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur oo u saxiixday dowladda Soomaaliya heshiiskan ayaa sheegtay in dhaqaalahan iyo mashaariicda kaleba ay dowladda Talyaanigu ugu tala gashay in wax looga qabto caafimaadka dadka Soomaaliyeed Ambassador Alberto Fesach safiirka dowladda Talyaaniga Soomaaliya ayaa sheegay inay sii wadayaan taageeridda caafimaadka oo ka koobnaan doonto kuwa dawliga iyo kuwa gaarka loo leeyahay waan sii wadi doonaa taageeridda dhinaca caafimaadka ee dadka Soomaaliyeed waxaan ugu mahadcelinayaa wasaaradda sida ay noola shaqeynayso ayuu yiri Ambassador Alberto dowladda Talyaaniga ayaa wasaaradda caafimaadka ku wareejisay qalab loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka oo ka mid ah adeegyada uu isbitaalka Martini bixiyo wasiir Fawziya ayaa sheegtay in qalabkan uu wax badan ku soo kordhin doono isbitaalka iyadoo ugu mahadcelisay dowladda Talyaaniga taageeridda ay siinayso bulshada Soomaaliyeed Soomaaliya iyo Talyaaniga xiriir qoto dheer ayaa ka dhaxeeya waana ku mahadsan yihiin taageeridda dhinac walba ah qalabkan wax badan ayuu ku kordhin doonaa shaqaalaha isbitaalka iyo dadka adeegga u baahan ayay tiri wasiir Fawziya dowladda Soomaaliya ayaa la wareegtay maamulkii gacan ku haynta isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho bilowgii Febraayo sanadkan waxaana haatan adeegyo caafimaad oo bilaash ah uu qabtaa dad ka badan 40,000 warbaahinta jariirada ayaa daawanaysaan beesha caalamka ayaa dowladda federaalka Soomaaliya dul dhigtay amar laga rabo
inay ku fuliso 30 cisho gudahood. xubno ka tirsan safiirada midowda Yurub ee Soomaaliya, qaramada midoobay, midowda Afrika, Mareykanka iyo dowladaha danay arrimaha Soomaaliya ayaa dhamaadkii bishii Oktoobar ee sanadkan kulan la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Kheyre iyo labada gudoomiye ee baarlamaanka Soomaaliya sida ay noo xaqiijiyeen xubno xog ogaal ah. beesha caalamka ayaa xubnahan dul dhigtay amar ay fulintiisu ku eg tahay 30 cisho oo keliya. haddii ay dhici weysana waxaa la filayaa in xubnaha beesha caalamka ay qaataan go'aan ka madax bannaan dowladda Soomaaliya, kaasoo noqon kara in cadaadis la saaro mas'uuliyiinta dowladda. xogta oo la helay ayaa sheegaysa in mas'uuliyiintan laga dalbaday in muddo 30 cisho gudahood ay ku shaaciyaan nooca doorasho ee dalka ka dhici doonto, maadaama waqtiga baarlamaanka uu ka harsan yahay muddo ka yar 1 sano. waxaa loo sheegay inay heestaan bisha November oo keliya, lagana rabo in 30keeda ay shaaciyaan doorashada dalka. weliba waxaa laga doonayaa inay qabtaan doorasho ka hormarsan tii sanadkii hore, ayuu yidhi mas-uul sare oo ka tirsan xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka oo la hadlay jariirada meediya. sharciga doorashooyinka ayaa lagu wadaa in bishan ay meel mariyaan golaha wasiirada iyo labada gole ee baarlamaanka, kadibna saxiixo madaxweynaha haddii uusan imaanin buuq kale, ayuu hadalkiisa sii raaciyey mas-uulka aan la hadalnay oo ka mid ah shakhsiyaadka aadka ugu dhow gudoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa wado qorshe ay ku doonayso inay dadka ugu qabato doorasho qof iyo cod ah oo dad kooban ay wada matali doonaan shacabka oo dhan, balse waxaa jira cadaadis xoog leh oo uga imaanaya dadkaas oo sheegaya in dalka aysan ka muuqan xaaladda noocaas ah. dadka qaar ayaa qaba aragti ah in mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya ay doonayaan inaysan hadda qaban doorasho, balse ay wadaan qorshe ay dib uga dhigayaan sanad ama ilaa 2 sano, balse waxaa jira culeysyo kale oo arrintan ka soo horjeeda. qaybihii dambe ee wararka jariirada ayaa haatan ku sii siqaynaa. dowladda Kenya ayaa u muuqata mid haatan qarka u saaran inay isaga harto kiiska dacwadda badda ee ICJ ee kala dhexeeya Soomaaliya. sida uu qoray wargeyska The Star ee ka soo baxa dalka Kenya, 3 garsoore oo gacanta loo geliyey inay xogmiyaan waxa loogu yeeray muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa sheegay inaysan xukunkooda ridi karin dhaqaale xumo awgeed. Kiyami Kiamu, Robert Lamino iyo Anthony Mrima oo shalay laga sugayay inay go'aamiyaan in Kenya ay sii wadayso ama ka baxayso dacwadda maxkamadda ICJ, ayaa ku fashilmay inay soo saaraan go'aan arrintaas la xiriira. dowladda Kenya ayaa 3 bilyan oo Kenyan shilin ka goosatay miisaaniyadda waaxda cadaaladda dalkaas, iyadoo sheegtay inuu dakhliga hoos u dhacay. garsooraha dalka Kenya ayaa codsaday 31.2 bilyan Kenya shilin, balse baarlamaanka ayaa u ogolaaday wax ka yar kala baro ah 14 bilyan, iyadoo wasaaradda kaydka ka sii goosatay 3 bilyan, taasoo sii adkaysay xaaladda garsoorayaasha. dhaqaale xumi awgeed ayay sheegeen inay garsoorayaasha oo ka kala imaanaya goobo kala fog ku adkaatay inay isu yimaadaan oo xukunka ka baaran degaan. guudaan saaxiibayaal daawadeel waxaa halkaas inooga dhan wararkii aad ka daawanayseen jariirada media